أنا الشباب ميهي أنا دولتكم مجري أنا سياستكم مجري دولة وركيدكم مجري محاسمي ما أنت دي محكمتنا للسارة على يوم محاسمي سليد الدنبيلنا عوام محكوا هلا يعني شيء يا سمي عيدنك جود يا كدنبي نينك سبركيسا ماس وسارة كل أنا هرجيس دنبي قد ما أنت صحابي سبركيسا أنت أنا شعب هرجيس واجعلها أمينة أم إجعل هذا أضيق عيل حتى كوري عليه وإذن تصير أرجيس شاشة إكركراعة أضيق علي أساق عنتيس اسكو صبري أساق عنتيس اسكو صبري تليفونك كجرو أضيق عيل أساق واي ما فهمتي أنا رسول معنا نحن كشيء جاي وي هيلان لكن تبتم بالسماعة أنا ومسعودي وجعلها ولا ليه جواي وحمايان دولة صار صبر عادي ودر حريها لإيصو دري ما فهمت إننا إيصو دري ما يعسنا شيء مربي وعكاسها أو والله أو بالله أو قلت الله إن بين كل شيء يعني وتدين تسلم كأكبحها منك وعكاسها صحابي هاد كور أساي علي أسانك عمت الإيساري ما عرفتي ننك انتو لقى فيري صونين وين معها صونين أبوه عمل معها محاك ستة شيء محاك ستة odayan maxaa ka sitaa asxaawe waa markii labaad maxaa ka sitaa ani al-shabaab miihi ani dawlad kuma jiri ani siyaasad kuma jiri dawlad warkeed kuma jiri maxaa samee maanta hadii maxkamadna la saaro caliyo maxay sameysay dambiilo noocee waay maxay ku hadlayaan ii sheeg وين سلامي بربارته مقال كان waxaan uga hadlayaa Mrs Wall oo mar kale dib looga celinayo magaalada Hargeysa sababtu dadka way isweydiinayaan sababtu wax kale maaha markii hore waxa ay Mrs Wall diyaarad kugu timid Somaliland ama Jamhuuriyadda Barakeysan isla mar ahaantaasi markii ay timid kadib madaarka Hargeysa international cigal airport ayaa dib looga celiyay kadib Muqdisho ayay tagtay Mrs Wall way ahaan weysay in ay sidaasi ay Muqdisho ku joogto mar kale ay waxay go'aan ku gaartay ugu dambeyntii ayadoo faraxsan inay gaari soo qaadato dhulka si gaadiid ah ay Hargeysa ama Jamhuuriyadda Somaliland ay ku tagto sidaasiba kadibna markii la ogaaday inay Hargeysa joogto oo ay Somaliland ay gaadiidka ku gashay kadib ayaa mar kale haddana la qabtay oo booliska la xiray sidii la sheegay cadeynta annaga ma hayno balse sidii la soo gaartay ay dadka dhan wada hadal hayaan ayaa waxa la sheegay in la xiray dibna loo celiyay sababta ayaa la rabaa inaan hadda bulshada u bidhaamino waa maxay sababta ay Mrs Wall ku mutaysatay inay Somaliland baan ka noqoto ama aysanba ku damaashaadin sida dhalinyarada kale ee bulshada ku jirta ama baraha bulshada ku jirta social media ee markasta yimaada ku dalxiisa lagu soo dhaweeyo kadibna ay dib uga laabtaan waa maxay sababta keenaysa inaan la ogolaanin Mrs Wall inay Somaliland ama caasimada barakeysan ee Hargeysa aysan marnaba ay ku tamashleen waa maxay sababta marka hore waxaan rabaa markii ay Mrs Wall tagtay erayadii ay tiri ina ila daawtid kadib waa isku soo laabanayna sababta Mrs Wall Somaliland looga diidan yahay marka hore ila soo dhawaada عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وانا وات إمادة قفل بوئي والولسن وانا وات إمادة حق سوغانا هاي ماشي أكو رشتي حمد عدي ما شاء الله مقدشة أكو صولابتي محالي ده مسول والا واتم حق سوء علي عمل قفل بوئي وهاي إرغاس إن شاء الله مركي ألابتي اللي سوء علي أنا أقل اللي سوء علي هرقس أمر لبات وتي بكس جعل أنا إني قبو سومالي لان أنا جعلها قبلينا فيديو أنا دو أنا ما عندي قبلينا ما حرتها ميسي داي علوشنا دوك فيو وانا شاف فيديو أسواد وعرفت إن تبتوجية وأنا إيه مع الأبال كينا حكرتين وأركي لكن واحد كستو حماتي اللي قسمي أم حبسي كستا درتنا أو قلي ماذا حين أنا إلى بكوس شعب كسوم على رير هرقيسة أنا دتك كنا لك هلا أيا وحول بدولة قسمين كو إلى حماتي كستو على رير هرقيسة وأنا جعلها قبلينا هاي مركزتو هدي wax kasta dawlad in aan ama hadii kale jaceelkina ku ilaawa jeceshiin ana ina xun meesh ka shay marawi dawlad ina aflagaadey marawi dawlad waxa ina dhaha marawi
wax kasta dartiina ku ilaabaa reer Somaliland aadaan jeclahay istiin aan jeclaa qalbigayga bal qal inta loo hadda loo qoro halay tirtiran cib noo madacaysa taas wixii dhacay way igu dhaceen keenan cuntaal ii keen dhuunta cunto waa saari waay qof xuriintii lay qaaday telefonka pink sheeg u dhaa odaya ma sheegin because aan telefonka waxa ugu jiro sawiraan garama ah xirnaa gabar kasta taqaana snapchat-keeda sawiraanta waxay telefonkeeda ku keedinayso lacala hadday soo fasaxan haddaa ay ka soo fasaxay sawiraana igu jiray telefonka iga buuxay sawiraan xasuusay sawiraan hooyaday hooyo iska madax qaaban xataa iska ay jirto qof walba because telefonka anaa haysta sax may mooyno telefonka security sheeg aan ilaa ma sheegaya dhahay wallaahi oo billaahi oo tala ilaahay maqlaaye biskoolada ay u qabteen casira la joogaa waa sheegay security because nafsadeeda badbaadsanooya security oo ku qasbana inaan sheego security yaa sheegay markii aan security sheegay telefonkeyga dhan hadda hal sabir asaa sabir ma aqaan telefonka tuu sameynaa sawirka xataa waad dareemi kartiin asaa iska qaaday wax sameynayo iska dhigay sawirka meeshiisu ku saaray sawirkiisa caddeynaa haystaa telefonka hal sawir kuma jirin telefonkii dhanaa laga tirtiray meelaa geeyay telefonkii hadda la iisoo fur ma fahantay meel kastuu ka xira oo wax waa soo degsada oo WhatsApp mala oo TikTok mala oo qof meel ma ka waca karo oo sawir igu jiro application telephone hatta soo ka tuu ila noqday oo cusub ani shacabkeeya u sameeyay aan ciidan maanta ku jiri CID mihi dawlad kuma jiri oo madaxweynaha ay dhalin oo ra'iisul wasaare ay dhalin oo qof xil haya ay dhalin oo ani shacab kaliya dawladna kuma jiri ma fahantay sababta ani la iiraasanaray xamar oo dhan ay joogaan meesha hargeysa waa wada xamar oo cad dadkaas ma la qabto ani maxaa la ifirsan ani gabar waxa dadkeeda jecel maxaa u imaade jecel u imaade ma fahantay naceeb ana hadda hargeysi ahalad al cadaawe ma soo laabo la hargeyso markal ma imaan lahaa dan ibna lahaa ma imaan lahayn meel ani liga celiya dan cid qalbi ugu jir lahaa ma imaan lahaa saxaaba adinkan ila weydii hargeysa ma imaan lahayn ani jecel u qabo ay waxay ugu bedeleen in ay xiraan xabsi igliyaan yaa samee ciidanka guud yaa ka dambeey ninka sawirkiisa mees u soo saara kulay aniga hargeysa dambe ay dhamaanta saxaabe sawirkiisa intu sanaan shacabka hargeysa waa jeclahay aminaca jeclaada odag iyo ciil hadda koor iyo celiyay waa idin tusaya araggiisa shaashada iyo gargaraaca odayga celi asaga gacantiisa isku sawiray telefonka ku jiro odayga ciil asaga waaye ma fahantay ani reer Somaliland wax ma ka sheegay way heeleen laakiin dib dambe Somaliland anigu ma socday waa jeclahay walaalahayga way xumeeyeen dawlad soo sabir caadi oo dhar xiray hal ii soo diray ma fahantinina ii soo diray magaciisana sheey marabi waa kaasa oo igu wallahi oo igu billahi oo igu talayna been ku sheegeenin waa diinta islaamka ka baxa ninka waa kaasa saxaabi hadda kor cili asaan gacanta la ii saaray ma aragti ninka intuu la egaa fiiri soo nin weyn maaha soo nin awoowahay camal maaha maxaa ka sitaa sheeg maxaa ka sitaa odayan maxaa ka sitaa asxaawe waa markii labaad maxaa ka sitaa jirdil ima geysanin laakiin biskooda uu qabtay telefonkeyga ayuu baaray ani beenna sheegay marabi telefonkeyga markuu i qaadayay biskooda uu qabtay binka sheegu dhaa binkana uu sheegay qadka uu dhigooyo waxaa ku dhahay binka telefonka security sawirana ugu jiro fiidiyaala ugu jiray wax kasta ugu jir ma fahantay asaan caadi qaad telefonka ilaa ay hadda sawir kuma jiro oo wallahi ugu billahi ugu talaay hal sawir telefonka kuma jiro hadda la isoo furay salaada laadaama ilaaha ku dhaartay ina kelmad baan ku sheegaynin waati salaad lay kor aadaamoyo reer Somaliland aan waan jeclahay gabadhiina ahay hal ceeb idinka ma sheegoy qof kasto marka hargeysa joosigiiso dhabe ilaaha ogaa waa jeclahay laakiin meeshaas dawlad kama jirto dawlad gabar kali raadsanaysa maxay tahay meeqa shacab aa joogto maxay iga raadsanayaan bal maxaa ka sameeyay yaa ka dilay yaa wax ka qaatay yaa hanti ka dhacay
أنا الشباب ميهي أنا دولتكم مجري أنا سياستكم مجري دولة وركيدكم مجري محاسمي ما أنت دي محكمتنا للسارة على اليوم محاسمي سليد الدنبيلة نوعي محكوا هلا يعني شيء مسؤالي waxay ku وين مات وما قرية حمراء جوا سومالي لا okay مسؤالي hal su'aal aan ku weydiinayaa baayo magaalada muqdisho waxa ku nool shacabweyne aad u tiro badan ee Soomaaliland haddii lacala ay dhacdo dad shacaba inay inta is awaalaan shacabweynaha ku nool magaalada muqdisho ee Soomaaliland ay ka bilaabaan dartaa in mataqaan halkaas dagaal ku bilowdo adil lagu aarayo ayagan la dhaho xamar matiyoodsan waxaad ku laabanaysan Hargeysa barnaamij qaso kale haddii TikTok laga bilaabo ma online lahayd taageer lahayd wax taagan tamaya dadku wadi socials أنا شعب كسومالان متاجر لي لكن أضياش سياسة كجر إن الحرة العقابة والتاجر لها because أنا الشعب وحبي إيجي مقلب سنرير سومالان أنا مدح إساريهن شعب كسومالان تحسير إن كركز تابتمر لكن أضياش واربا نولش إنه عقاب because أنا محاك سمي أبو ميقا ريح حمر جو هاد هرقيسو نوض ريح حمر وايد دادا عان هنا بوحو ما فهمتي أنا كلي محي إلى الشناين وصوبت إلى الشناين محا أنا محا هاي سياسة ميا كجرا شرعي وروحي وكلي ولدنا مش سؤالي أباي أنا ترى كسينيا هذا تلا كسينايو أدو باهنتها إن عدد بلشوين أصوب وقتي بطلان بعد كرتا قل مدوق بعد كرتا مش هتقول رتي هرش بلد عادي كرتا جبلان بعد عادي كرتا كونفور قلبي بعد عادي كرتا halkaas tijaabay أبو أن ملك استوى هذي إن أيكن جعله أو قبو أو جعله هذي لكن جعلك يعني أجعله هذا سس بدلين وحبك مديكر مفانتي مردم بي أنا الرسومالي وجعلها لكن مردم أنت نرشد كدي من ما هذا يهركيسو هدي واحد اسبدشو أول مذوين مشيقين هدي لمذوين يا وسيد مقدشو عمل ايه نقونين مركز وإيمان دونا لكن قصوكي ماي waatahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddii aad soo daawatay marka koowaad su-aasha aan qabo waxa ay tahay adiga i daawanaya maxay kula tahay in Mrs Wall loo xiray ama sababta loogu diidan yahay jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland bal marka hore adiga commentiga inoogu cabir aad iyo aad baa u mahadsantihiin muuqaalka noo share gareeya sidoo kale tana like-ta iyo commentigana adiga ayaan ku daayay inaad si xura uga hadasho aragtidaada adigoonan cidna soo caayin adigoonan cidna meel uga dhicin sidoo kale waxa ka codsanayaa walaal teamka waxa la hadlayaa Facebooka team si naxariis leh Facebook fadlan sida kor igu qaadeen oo 100,000 ay gaarsiiseen the same si naxariis leh vlogs waxaan idinka codsanayaa inaad YouTube ka tagtaan subscribe-ka 100 aad gaarsiisaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin